Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacayga waa Mustafa Xasan Cabdi, waxaa ku magac dheer Raacooke. Halkan waxaan idinkula wadaagi doonaa sheeko kooban oo cajiib ah, nolosheennana runtii aada u taabanaysa. Waxaa la sheegaa inuu jiray nin habeen habeenada ka mid ah ayuu wuxuu fadhiistay xilliga badda. Siduu xilligii badda u fadhiyey naftiisana u maaweelinayay ayuu meel agtiisa ah wuxuu ku arkay kiish ay dhagaxaan ku jiraan. kiishkii buu soo qaaday, dabadeedna wuxuu dhigay agtiisa. Kabacdi kiishkii buu furay, wuxuuna ku arkay inay dhagaxaan ku jiraan. Kabacdi wuxuu bilaabay si uu naftiisa usii maaweeliyo inuu dhagaxaantii kolba mid badda ku tuuro. Wuxuu soo saaray dhagaxii ugu horreeyey, badda ayuuna ku tuuray. Kabacdi biyihii ayaa cod cajiiba sameeyey oo dhagihiisa ku raaxaystaan. Kabacdi wuxuu bilaabay inuu dhagaxaantii kolba mid soo saaro oo biyaha ku tuuro si uu ugu raaxaysto jabaqda iyo codka macaan ee kasoo baxaya biyaha. Habeenkii oo dhanna naftiisa ayuu saa ku maaweelinayay. Kabacdi waagii ayaa ku baryey, wuxuuna arkay inuu dhagax keliya kusoo hadhay kiishkii. Dabadeed wuxuu eegay oo aada u fiiriyey dhagixii. dhagix wuxuu noqday mid cajiiba, wuxuuna noqday luul. Ninkii halkaa wuxuu ku garabsaday inuu wixii xalay uu badda ku gurayay ay wada ahaayeen dhammaantood luul, oo ninku khasaariyey sidoo kale fursad bedeli lahayd noloshiisa oo ku noqon lahaa hantiile. Haddaba waa maxay dulucda sheekadu? Dulucda sheekadu, kiishka luulka ku jira waa cimrigeena, waa cimriga qofka baynu odhan karnaa. Fursado badan oo nololeed ayaynu dayacnaa. Sidoo kale waxaynu waqtiga inta ugu badan ku luminaa waxyaaba aan faa'iido u lahayn nolosheena amba cimrigeena. Codka macaan ee ninku ku raaxaysanayana waa macaanka nolosha ee ay nafteenu iska jeceshahay. Mugdiga habeenku waa qafladda iyo mooganaanta aynu kaga jirno nolosha. Waaga baryeyna waxa weeyaan waa dhimashada. Aad baan idin salaamayaa. Waxaa idin leeyahay nolosha ha idin wacnaato.